شغله كميدا kaalmeeyaasha dhakhaatiirta magaalada Hargeysa walaal magacaa waxa la dhahaa Daaric maxay shaqadaadu tahay aniga shaqada waxa ay qoraalka dadka koobidda bal tirakoobka noo sheegay in dadweynihii meeshan ku dhaawacmay ee madaxweynaha diyaaradda wax yeeleen tirakoobka ay dadweynaha ay yeeleen waxa weeye 800 iyo 6 iyo 4 maxay u kala qaybsan yihiin waxay u kala qaybsan yihiin carruur maati ah iyo dad waaweyn oo islaama iyo odayaal bale daawacyadoodu sidee bay kala yihiin daawacyadoodu waxa weeye waxay u badan yihiin madaxweynaha iyo diyaaradda waxaana qaar halisa iyo diyaaraddu ay halisa iyo qaar xuduud labadaba waa jiraan kaalmada dadweynaha ayaa u fidiya waxa u fidiya xooga waxa u fidiya xooga mucaaradka Soomaaliya ururka isna أحمد مالنتي قياسان انت لك أنا عددك والله تركوكم مالنتي ضدك قياسان لك أنا مالن والبواس تقوليه مالنتي واحد لو قياس كلا لكن إلا اللحدا إلا تضوات أنت سوى حبضا كنت تقوليها تحدث إما ذا كيرو يكون عادي هي أنت ضد طيارة أي كذا شيء كورياش بقدر قياسان مدن عيرة إمك أنت محيا لا اسبيطال محيا لا دواء إلا سجاد لكن حرموه وافر بدني حرمين إنه حقيقة كلا يالان واحد كلا يالان حق هراء ملها أي شغان شغان كأكتسا وهذا يو ملها ضمبه لبده هو أي داوعية كلنا حاجة ذوق بسنة وحنوجد بين داوعية كلا كده دبله هل كانوا وصلت ترى كده وبيش هوجوي إلا جرى داوع حرمت أنا ممكن نشوفه هذا هو صو داوع مية لولا ما أعرف كرا والله أحمد بالنور إنك داوع يا هل كان شيء بعد إنك داوع بقيت ما لا يعني وأنا الشعب وأنا كنت عايز أسأل لا تصور من الكور بسرعة كده بسرعة يا عدو أو ساكع كده يلا يلا كل كلنا حاجة كذا هذا اللي نحن ولا كذا حاجة نوعية هذا محل هذا هون يلقوا ثمانية بعد الصبح ولا دويش حقوق كذا على مثل ثم بقول عليه كذا وأنا بقول هذه المسألة هو كلام بدو حاجات كيفان حاجة يسوى هو كيو يقول لي سوكل لو كل dadka xaalada lagu sameyn jiray waliina ugu jirnaa dadkii marafiicii diyaarada dhaawaceen aygidoodii haddana waxa ka xigtaa Axmed bal noo sheeg islaanta magaceeda islaanta waxa la yiraahdaa Axmed Ismaaciil xagee kaga dhacday Ismaaciil waxa kaga dhacday dowladda iyo gacan iyo dhabar dhaawaciisa waxa uu qabtay imika dhaawaciisa waxa dhacay ugu horeeyay laakiin shahaado weyn markii kaalmo loo fidiyay caafimaad شغالة كذا دكاترتين جدي قد بقول هؤلاء عاصمات. بقول لك هاون كله كوفرة كل سنة. كوك الله غلط يقول شو هنون تقول لي هذا. كوك الواحد كذا غلط كذا يجري ده واحد قال له اللي نور. حاجة نقول رشا. وامش يقول يصير سوق الله. دكتور بالله عارف ما شغال. أحمد عادل. أحمد بالله واحد تفاصيل ما قصدي تقول دعوة ما أعرف كيف. dadkan dhaawaca waxay u badan yihiin wax oo qorgan la yiraahdo mid ku dhacay iyo wax dheer taag ay u shaqeysay ilaa dalowga ila jiri saacado taag ilaa intii suuqno ah koob toban soo bawa dawladna ku qorata hadda shaqada laga hayo bay'id taagii kaama la yiraahdo sida waxay u qabtaa cagaha shirka gilgiisa madeeda madaxa isha wada lagu xidhay في نبشة ذيك اللي وسعت. فأنا كنت عايز طريقة لده سوى. لكن ممنوع عامة كده يعرف. ما تدمينه مجالات. مجالات. دعوان تخلى ماشي فدك هذا دعوة. وليه أنا حا. كل عايز بدين يبغى من الشيء بدين. ولا الشيء هروي. البلدان ولا حنا بخبرك كذا اسمه كلام ضوئي عن ذلك كذا نوع وعاء أو تفاصيل نفسي دعوة عائلة وحدة تقلق
وحقيقة ما في قلعة خاطوها يندعوا كلام الناريني لو كانوا دعوا شفاء طريقة يبغى ضد المدافع أيوة حيلين تفاصيل نقعين أركينو لبا نينو كالورنا وعاب وجدوين احتماليات كاملة واحد من شوقا تحاكير كوحاولان هاولو هذا ورئيس الله إلا نفتكت والمقعات waxaan hay dhaqtar ka tirsan dhakhaatiirta iyaga waxay noqotay dadka masaakiinta ee ay garaacday dowladda dadkaas oo ahaa dadkii shicibka ahaa maatigii iyo caruurtii degan magaalada Hargeysa iyo agaarkeega garaacay madaafiic iyo waxyaabadooda oo kale waxaan nahay dad ku hawlan sidooda inkastay hawsha laga badan tahay laakiin intii ay badbaadin karaan qaban karaan dhiigga inay sheegi karaan inay meeshii salman ay horumar qaban karaan iyagoo loo baahnaa kaalmayntaa ka culus oo dhakhaatiir iyo dawooyin raashin iyo waxyaabo kale oo lamid ah dadkaas oo hadda lama yaraatee aan dembi gelin oo dadkii magaalada deganaa raayidkii shicibkiisa indhihiina ku aragtaan intan waxa weeyaan halkii ugu horreysay ee emergency-ga ee la keenaya dadka kusoo dhaawacmaya magaalada madaafiicduna ay ka dhacayso saacadda ka dambaysa saacaddana ad arkaysaa ilaa imaka way soo sidaas ayuu baana dadka soo keenaya waxaanay u baahnaan lahaayeen dawooyin iyo raashin iyo waxyaabo dhaawacoodu waa sidee hadda iyaga dhaawacoodu aad ayuu khatar yahay waayo waxa weeyaan dhaawacoodu waa dad lagu garaacayo madaafiic halkaasoo ay kaga dhacayaan organayaasha halista ee abdominka ama jastiga ama meelihii kale ee beeraha iyo caafimaadka ay kaga dhacayaan kuwaasoo u baahan dhiig joogto ah dadka bedelkooda waxay u dhimanayaan dhiigii oo xabadii dhacda waxay ku dhacaysaa organ halisa kabacdina qofku dhiig baxaya dhaawacooda waad aragtaan indhihiina ayaa ku aragtaan inay kulligooda halis yihiin daaladda gurigii aynu weli ku jirno oo ah guri loogu kaalmeeyo dadka dhibaatada ay ku soo gaadhay madaafiicda diyaaradda ayaa waxaa jiifa nin kale oo aad u xanuunsan iyo u buka waxaa ku hawlan hawshooda dhakhaatiir fara badan oo kaalmo siinaya bal dhakhtar ka mid a dhakhaatiirtaasoo wareysanay ninkaas caafimaadkiisa wuxuu nooga sheegay walaal magaca maxamed xaaji maxamed bal nooga waran ninkan dhaawaca hawlihiisa ninkan dhaawaca waa nin socda isagu ku dhaawacmay madaafiicda soo gelayso sidee buu wax u qabaa isagu hadda wuxuu qabaa saas ayaa sida waxbay daaweyntiisu sidee hadda idinku tahay daaweyntiisu hadda waan u dhamaynay waxaan kula joognahay ku jirnaa eegidii dadka dhaawacan gurigan loogu talagalay kaalmada dadweynaha Soomaaliyeed ee reer Hargeysa waxyeelada ku gaadhsiiyeen madaafiicda iyo diyaaradaha taliska macaangaga afweyne ayaan haatan waxaan soo gaarnay qolkii afraad iyadoo jiifaan laba nin oo aad u buka waxaan ka wareysanay xaaladooda dhakhtarka kaalmeynaya walaal magaca أيوة على إبراهيم. bal nooga waran ninkan hadda aad kaalmada caafimaad u fidinaysa caafimaadkiisa deegaan kaalmada caafimaad qaban sidii xaaladkiisu waxa weeyaan madaxa ay kaga dhacday brain halis buu yahay iminka xaaladada aan u joogno aan ka shiyo xiskiisu waa noqon yahay taasoo ay u geysteen taliska macaangiga si naxariis daraan ay ugu leynayaan madaafiicda madaxa mooyaane meel kale may wax ka qabaa waxaa ka qabaa gacantiisa midigna shabba ayuu ku leeyahay gogoorma kusoo dhacday waxaa ku soo dhacday 10 minutes ka hor maskaxdiisa haddii aan lagu haddaan bareenkiisa kaaga wadano maskaxda barahaan way soo dhacday oo waa laga tuuray lugta fidwar magacaaba
dhibaatooyinkaas oo gaadha waxa weeyaan dhibaatooyinka